Waxa uu ahaa mid la xanuunsan cudurka baraska muddo 70 sano ah ayuu caabudayay sanamyo. Waxa uuna la kulmay 3 ka mid ah rasushii uu Ilaahay soo diray. Maxaa ku ogeysiyay qofka uu yahay? Magaciisa waa Xabiibun Najaar. Qisadiisana waxaa lagu xusay Quraanka Kariimka, gaar ahaan suuratu Yaasiin. Maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo magaalada gaaf wareegaya, ayuu la kulmay 3 ka mid ah rasushii waa la soo diray. Waxa uuna yidhi, aniga waxaan la xanuunsanahay cudurka baraska muddo dheer. Dadkana ma dhex degni oo meel geesa baan ka deganahay. Haddii aad run sheegaysaan oo aad rasuul waa la soo diratihiin, ii soo duceeya oo ii barya in Alle subxaanahu wa tacaala xanuunkan iga qaado. Waayo muddo 70 sano ah baan caabudayay sanamyadan, waxbana iima tarin inaan sii darsado mooye. Duca kadib, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka dulqaaday xanuunkii, halkaa ayuuna ku islaamay. Nebiyadii waxay gudaha u galeen magaalada, waxayna bilaabeen inay dadka wacdiyaan oo ay ugu yeeraan diinta Islaamka. Dadkii tuulada deganaa ayaa u tashaday ambiyadii Alle, iyaga oo yidhi, 3 nin wax cusub ayay la yimaadeen ee hala dilo. Xabiibun Najaar ayaa maqlay qoomkiisa inay u tashadeen nebiyadii, markaas ayuu soo orday si uu qoomkiisa ugu sheego inay raacaan nebiyadan. Sidoo kalena waxa uu u sheegay inaysan uga baahnayn wax hanti ah oo ay doonayaan kaliya inay islaamaan. Waqtiba kama soo wareegan jeer ay qabteen Xabiib, iskana ilaabeen 3dii rasuul, waxayna bilaabeen inay jirdilaan, iyaga oo ku yidhi, adiguna ma kuwan ayaad raacsan tahay? Waxa uu ugu jawaabay, haa, maxaanu caabudi waayay Allaha abuuray makhluuqa oo dhan, misena aan xaggiisa u noqonayno. Jirdil iyo ciqaab daran iyaga oo ku haya, waxay ku yidhaahdeen, ka noqo diintan oo ku soo laabo sanamyadaadii aad caabudi jirtay. Waxa uu isla markiiba ku yidhi, haddii aad diintan ka laabto, baadi cad iyo khasaare ayaan ku suganahay. Ogaado qoom yahow, anigu waxaan rumeeyey Rabbiga abuuray kownkan iyo inta dul saaran. Muddo yar kadib, Xabiib ciqaabtii foosha xumeyd awgeed ayuu u geeriyooday. Isla markii uu geeriyoodayba, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku yidhi, adiga jannada gal. Jannadii markii uu galay oo uu arkay nimcada iyo barwaaqada taala, ayuu yidhi, qoomkiyow, maad ogaataan nimcadan. Geeridii iyo dilkii Xabiib kadib, qoomkiisii kama ay dambayn oo Rabbi ayaa baabi'iyay dhammaantooda. Samada loogama soo dirin ciidan fara badan oo waxaaba ku filnaatay dhawaaq uu dhawaaqay Malakul Jibriil. Gebigoodiiba hal mar ayay wada aamuseen oo dhammaantoodii halkaa ayay ku dhinteen.